horeba u ogeydeen waxaa garoonka ciyaaraha muqdisho stadium ka furmay horyaalkii ugu horreeyay burburkii kadib oo lagu qabto Generaal Daawud 2020 oo ay maanta labada koox oo isku aadka kooxaha Heegan iyo Horseed ay halkan ku ciyaarayaan war-saxaafadeedkan gaarka ah waxaan u qabanayaa anigoo og ka wasiir dhalinyaro sport Soomaaliyeed ahaan gaar ahaan marka aan ka hadlayo caasimadda dalka gobolka Banaadir mujtamaca ku nool in ay dad 3 milyan gaarayeen anigoo og mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaan in 70% ilaa 75 ay dhalinyaro yihiin anigoo og ciyaaraha isboortiga sida ay xiiso ugu soo celinta rajada ummadda Soomaaliyeed oo ah garoonkani uu yahay qalbigii dadka Soomaaliyeed sida Wembley ay u tahay qalbigii UK anigoo og hiwaayada gaarka ah oo kubadda cagta in aad da'yarteenu u xiiseeyaan intaasoo dhan waxaa dheeri ka ah tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu furay garoonka waxaan ku soo aadnay xaalad cudurkan safmareenka ah ee COVID-19 ama coronavirus saas daraaddeed horay ayaan u mamnuucnay oo ay ogyihiin dhammaan olombikada iyo xiriirada in aan mamnuucnay meelaha la isugu imaanayo iyadoo ay ahayd go'aanka dawladda gaar ahaan xukuumadda la raacayo talada wasaaradda caafimaadka iyo takhaatiirta Soomaaliyeed anigoo og hamuunta ay u qabaan inay maalin kasta 20 ilaa 30 kun oo dhalinyaro ah oo daafaha magaalada iyo nawaaxigeeda ay iskaga imaanayaan tartankan maanta uu furmay saddexda garoon oo garoonkan oo dalka ugu weyn iyo labada kale ee Engineer Yariso Stadium ee jaamacadaha garoonka jaamacadaha ayaana ay u qaybsan tahay sida wasaaraddu og tahay oo xiriirka kubadda cagta dejiyeen suurtagal maaha maalin kasta inaan 20-30 kun dhalinyaro ah ay heli waayaan garoon 60 kun qaada oo xitaa la heli karo social distance dad firaaqo ay ugu daawadaan wasaarad ahaan annagu ma qaadno 26 ka wasaarad waxaan nahay wasaaradda kaliya oo aan dakhli dawladda soo gelin garoomada kubadda cagta oo ugu weyn yahay garoonkan Stadium Muqdisho gacan ku heyntiisana wasaaradda iyadoo ay garoomada dawladda ay mas'uul ka tahay ka wasaarad ahaan ka wasiir Khadiija Maxamed Diiri ahaan gacan ku haynta maamulka garoomada waxaa mas'uul ka ah xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana amniga guud ee garoonkan gacanta ku haya iyo garoomada kaleba ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aan uga mahad celinayo sida quruxda badan ee qaybaha hadda diyaarka ah iyo qaybaha kaleba ay amniga garoonka gacanta ugu hayaan maanta laga bilaabo taliya xijaar taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed halkan jooga waan isku daynay ka hooyo ahaan aniga gurigayga waxaa ugu daayar galeed xaq waxa uu leeyahay ay dhalinyarada Soomaaliyeed u leeyihiin daayarteen waan ogahay jadbada u haysa kubadda cagta mararka qaarkood aan burdo uga soo kacaa ayagoo ciyaaraha kala fiirsanaya Chelsea u taageera ciyaartooyda caalamkana siyaasadda marka asaagu waxa soo dhan aniga aabbo iigu ah galay gurigayga marka ku soo sasaa hamuunta ay u qabaan ogahay
dhalinyarada Soomaaliyeed marka maanta ayagoo qalbigii ummadda Soomaaliyeed garoonka istaadiga Muqdisho dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabihii lagu hirgeliyay isxilqaan dalkaaga ku dhiso ayuu furo u yahay garoonka ciyaaraha Muqdisho hay-adihii iyo dawladihii gacanta ka siiyey na waan uga mahad celinay hore laga bilaabo marka maanta mudane gudoomiye taliska ciidanka booliska marka lagu qabanayo garoonkan waa u fasax daayirta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir lacagna ma qaato marka iyadoo amnigana la sugaayo ayayna haddii Allah ogolaado ay soo geli doonaan marka si gaar ah ayaan warka saxaafadeedkan waxaan gudbinayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta kadib ay taas ogaadaan waa furan yahay tartankii Generaal Daawud 2020 oo aan ku faraxsanahay garoonkii oo saacadii iyo kuraastii u dhammaystiran tahay maanta in lagu furay wabillahi tawfiiq